oday baa kaadidu qabatay dabeetana dhakhtar baa la dhigay odaygii waxaa la yidhi borstite baa ku haya qanjidhkan qofku markuu 50 ba dhaafo wuu dareemaa inta badan qanjidhkaasi dabeetana waxaa la yidhi waa in qanjidhka laga saaraa lacag baa la bixiyey qanjidhkii baa laga saaray maalintii dambe dhakhtarrada weydinka arkay oo aroortii markay cusbitalka soo galaan dadka jiifa bukaanka ayuu dhakhtarku kormeeraa qof waliba uu eegaa xaalkiisa xal sidee ahaa caynkan kadib uu wuxuu fadhiistaa qolkii uu fadhiisan jiray odaygii buu marka uu qalay buu ku soo beegmay marka iska waran buu ku yiri sidee tahay odaygii markaasuu ilma indhihiisa ka soo daadatay waa ooy dhakhtarku wuxuu adeer maxaa la ooyeysaa adoo tacbaansan oo kaar badani ku hayo ayaa lagu keenay waa lagu dadaalay operation fiican baa ilaahay naga ka dhigayo waa lagu guuleystay ma sha Allah si wacan baad imanka kaadidii kaaga imanaysaa leesh maxaad u ooyeysaa maqaalad cajiib ah buu ku jawaabay odayga wuxuu yiri maalintan dhashay oo dunida imi ilaa maalintii dhakhtarkan la keenay inta waa kaadinay bilaash baan ku kaadinay wax lacaga ilaahay igama qaadin hal maalin oo aan idin baahday oo kaadidii qabatay baa tiraahdeen intaas oo lacaga keena hal maalin baa idin baahdo kaadidii qabatay dhowr iyo 7 sano baan caadi bilaash lacag laan ku kaadinay maalinta ay kaadidii qabatay baa tiraahdeen intaas oo lacaga keena meeshu wax ka eegaysa ma aragtay waxa aynu haysano ilaahay ina siiyay waa xusuusin ba iga